السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka la kusoo dhawaado video kale videoyaashan soo geliyo todobada video ah dad badan ayaa daawada ma sha Allah macna dad aad u badan ma daawanay laakiin waan filanay macna dadka inay ka yaraanayaan videoyaasha caadigan soo geliyo maxaa yeelay badanaa wax technical markaan soo geliyo oo tutorial camal ay badanaa dadka aad uma daawadaan laakiin waa caadi insha Allah mustaqbalka ugu talagalay uma talagalin hadda inay macna dadka wada kulli wada daawadaan waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo insha Allah react of course waa 10 soo wada waayo oo jidku ku soo jiro 10 kala badan aan soo wada laakiin react ayaa ugu soo dhow react maxay tahay marka hore inaan ka hadlo react.js ayaa la dhahaa react.js waxa weeye waa javascript framework waxay dhahaan ama javascript library javascriptna saa ogtihiin waa luqadda browserka uu fahmi karo browserka luqad kale uu fahmi karo ma jirto oo programming aan ka ahayn javascript marka waana arrin macnaha badanaa laga hadlay oo aad macnaha dadka ola yaabeen sababta ay javascript ugu guuleysatay inay noqoto luqadda kaliya oo browserku fahmi karo laakiin taas waa marka aan ka hadli doonaa insha Allah marka javascript waa luqadaas browserku fahmi karo waxyaalo badan ay dadku soo sameeyeen sida jQuery waxa la soo sameeyay frameworkyo kale fara badan marka si loola dhiilgareeyo ama loola hadlo browserka luqadda javascript waa luqad adag ma aha luqad fudud waaye waa luqad iska caadi ah waa sida camal java camal waaye oo laakiin xoogaa la fududeeyay oo macnaha biyo lagu daray camal xalxaliyay waaye laakiin macnaha wala qabsan kara qof kasta oo programming bartay javascript wala qabsan kara laakiin taas macnaheedu ma ahan in ay javascript fududahay in wax lagu dhiso so browserka wuxuu leeyahay wax la dhaho DOM waa document object model macnaha waa hab browserka loo dhisay waaye oo u dhisan yahay macnaheedu waxa weeye waa geed camal waaye wuxuu leeyahay laamo wuxuu leeyahay xidido wuxuu leeyahay salki wixii browserka marka wuxuu ku leeyahay javascript isticmaal si aad geedahan laamahooda waxood u bedeshid hadaa rabtid inaad laanta ugu sareeyo aadid waa inaad javascript isticmaashid hadaa rabtid inaad laan ka bixisid laan kala gelisid waa inaad javascript isticmaashid taas waxa marka DOM manipulation la dhahaa waa ka bixinta soo gelinta dhexmaridda aad dhexmaraysid geedkaas oo kor hoos aad aadaysid waxa la DOM manipulation ma fududo marka DOM manipulation marka sameynaysid waa inaad hadii aad rabtid inaad meel hoos aadid waa inaad code badan qortid hadaa meel kale rabtid inaad code badan qortid waa inaad targeting aad samaysid selection ama targeting samaysid fara badan waa inaad wax isku xirxirtid ma fududo oo macnaha dadka badankood ma fududo waxay noqonaysaa very messy maanta wax la select gareynaysaa marka waxa la soo saaray luqado kala duwan si jQuery camal jQuery waxa sameynaysaa DOM manipulation waxa sameynaysaa hal waxa select gareynaysaa waxyaalo badan ku sameyn kartaa shaqadii ku fududeynaysaa marka function badan inta qori lahayd function yara qoraysaa marka react soo baxday react waxa soo saaray Facebook waana ka hadli doonaa insha Allah video 10 aan ka bixin doono oo dhan ayaan taariikhdeedii wixii oo ka hadli doonaa Facebook ayaa soo saaray react sababta loo dhahay maxaa yeelay waxay ku react gareynaysaa waa garanaysaa dadkan reaction video soo ma arkin reaction waxa way qofka in uu wax uu daawanayo uu wax ka macnaha ka bixiyo uu macnaha sida uu u arka camal waxaan u bixiyo marka reactigaas waxa weeye barnaamijkan react wuxuu ku react gareynaya ama macnaha uu isbedelka lagu sameeyay DOM-ka ama baalka waxa la jiray browserka ayuu arkaya ka bacdi isla markuu isbedelaya marka react saas loo dhahay wuxuu arkaya isbedelaya waxa jira wax loo state oo ku jiro react insha Allah mustaqbalka hadda doono waxa soo dhan marka react waa taas weey waa javascript la habeeyay loo kala habeeyay wax la dhaho component loo kala habeeyay waxay xoog ku leedahay oo kaliya qaybta hore oo website-ka view-ga bas xoog ku leedahay javascript shaqo kuma laha backend-ga database-ka server-ka wax shaqo ku leedahay ma jiro waxay shaqo ku leedahay qaybta hore soo ma maqlin concept-ga la dhaho MVC waa model view controller MVC-ga qaybta view-ga ayay tahay react marka sida darteed react waxa weeye waa luqad ma ilaadu ku runyahay ma adko way fududahay waa javascript-ga la fududeeyay waa arrimihii DOM-ka shaqo kuma lihid oo ma taabanaysid DOM oo ma taabanaysid react laftirkeeda waxay leedahay wax la dhaho DOM virtual DOM wax la leedahay oo ayada ay samaysatay oo ay macnaha waxay ka mid dhigaysaa oo wax isku dayaysaa inay noqoto DOM-ki library-ga oo library-ga browserka so waxay sameynaysaa marka browserka markasta uu DOM-kiisa isbedelo react virtual DOM-keedana uu isbedelaya virtual DOM-ka waxa weeye waa DOM ay react samaysatay oo loogu talagalay in macnaha la shaqeeyo DOM-ka caadiga ah ama browserka DOM-kiisa marka
waxaas aad ma taabanaysid marka ma taabanaysid virtual DOM iyo waxa shuqul kuma leeyahay waxa qoraysa aan adiga waxa u baahan tahay waxa leedahay componentigan qor waxaan rabaa inuu soo saaro waxaan inuu tusaan rabaa saan inuu tusaan rabaa and that's it marka waxay ku fiican tahay marka React waxay tusaysaa wixii sida adiga u rabtay waxay isticmaalaysaa hal selection isticmaalaysaa meeshii awla adiga dhihi lahayd div kan select garee h1 kan select garee kan select garee website ka waxaan ka bedel ayadu waxay isticmaalaysaa hal selection bas isticmaalaysaa waxa kale oo dhan waxa lagu sameeyaa virtual DOM ka lagu sameeyaa marka virtual DOM ka wax laga bedelayaa waxaa la isticmaalayaa halkaas connection oo root ayaa la dhahaa ayaa la isticmaalayaa kaas wax laga bedelayaa dhibcaha halkan ugu qoran dhibicdu ugu horeysa waxa inay fududahay sidaan ka hadlay way isna ma adko oo DOM-kii sida JavaScript-ga ma ahan waa la fududeeyay waxa kale oo setup-keeda also markay noqoto barashada aad baranaysid React ma laha waxyaalo micnaha aad inaad xifdisa u baahan tahay gooni ma jiro waxa kaliya rabtay inaad ogaato u baahan tahay inaad ogaato waxa weeye sida u shaqeeyo component-ga JavaScript ku soo baran kartaa component-ga class component and then it has been why waxyaalaha kale waxa weeye waxyaalaha aad samaysan kartid ma ahan wax oo ay React ku meel ku dhigtay ku dhaxday waxaan inaad barato waa san inaad barato san inaad u shaqaysiiso waa dhar ku qasban tahay ma waxaan waa wax aad samaysanaysid midda kale waxa weeye setup-keeda number 2 waxa weeye habka loo set up gareynayo waa very easy waa Facebook ayaa waxay sameeyeen videoyaasha horena ooga hadlay oon idin tusayay Facebook waxay sameeyeen wax la dhaho create react app waxa weeye GitHub repository oo waxa weeye aad soo qaadan kartid waad ku shubanaysaa computerkaada done waa hal mar ba install leedahay way kugu jirtaa React mesh dhanbo ma baahna wax kale waxa u baahan tahay bas Node soo install garaysato software-ka Node ka bacdin React-gaas soo shubanaysaa waa laba command wax dhanbo waa install iyo create react app that's it waxa kale oo jiro ilaa haduu ku run yahay waa clean way macnaha markii aad soo install garaysato React computer ku soo shubato qashin fara badan kuma jiro inkastoo hadda xoogaa ku soo dardareen laakiin waa dhowr page way oo JavaScript ah waxyaalo yaryar ku jiro already ku set up gareeyeen waxaas iska tirtiraysaa zero ka soo bilaabaysaa insha Allah casharka aan idin tus doono ka hadli doono waxa soo dhan way fududahay macnaha ma laha waxa oo qashin badan ma laha waa sida camal waxaan u barbardhigi karaa React camal sida Apple camal telefoonada iyo computerada Apple marka soo gashato waxba kuma jiraan waa iska empty waa there is nothing ma jiro commercial wax la xayisiina ma jiro Windows marka soo shubato company kasta oo computerka Windows-ka soo gatay oo macnaha isticmaalayo ka soo qato Toshiba camal waxay sameeyaan qashin ka buuxinaa computerka Windows ka qashin ka buuxinaa kana soo gadanaysa HP qashin ka buuxinaan marka React waxa weeye qashin badan ma lahan waa just very clean sida Apple camal waa simple waxba kuma jiraan adiga zero ka soo bilaabanayso waxaadi adiga meesha ka wadanaysid dad qaarkood ma jecla taas dad qaarkood way jecel yihiin it depends waxa ku xiran tahay adiga waxarta wax ku bilaawsan oo macnaha bilaabatay oo lagu sii habeeyay oo wax yar ka bedelaysa bacdina ma salaamo مسو حارته سيده عمل ووردبريس already set up waayo wixii ku set up galaysan oo ku habeeysan dhowr kliga dhagdhag siinaysa website waa ku taagan yahay tan React asma React waxa weeye waxa lagu siinayaa geedi ku dhisi lahayd lagu siinayaa meesha waxa lagu leeyahay geedi waa kana busbaarada waa kana bruskina waa kana مع السلامة adiga dhiso xaado kolooyin yar yarna waa kana wax ku dhajisanaysid waxay la luqsi siinaya waxa lagu leeyahay okay مع السلامة taasna micnaheedu maaha wixii jajaban lagu siinayo waa marka soo shubato ayadoo shaqeynaysa ku soo baxaysa React actually hadii aragto inaad zero ka soo bilaawdo oo scratch ka soo bilaawdo adoon isticmaalaynin barnaamijkan ay Facebook sameeyaan oo create React app adoon isticmaalaynin waxyaalo badan inaad qabatid setup-keeda is confusing waa very complicated waa inaad soo install garaysato balkan Babel Webpack waa inaad isku xirtid waa inaad habaysid waa inaad configure garaysid habka la rabay waa inaad security-geeda iyo habka u shaqeyn lahayd iyo xidhan DOM-ka inaad u sheegtid in ay waxaan yihiin JavaScript inaad u sheegtid waaye inaad package-da kala habaysid so scratch ka soo bilaabayso waa very confusing waaye saa darteed Facebook waxay u sameeyeen create app-kan oo hal click ah and then way ku samaysanaysaa baashi setup-ka marka waa saas waaye community-gana aad ay khatar ugu tahay number 3 waxa community-ga waxay leedahay Facebook groups waxay leedahay YouTube channels badan jiro oo React ka hadlo waxa jira xataa conference-yaal shirar waaweyn oo laga sameeyo React bas jiro oo just React laga hadlaa bas
shirar waaweyn jiro meetings oo meelo lagu kulmaa jiro YouTube ka helaysa xasadan xataa hadaa fiiris meesha deganta community-gaada waxa laga yaabaa in ay jiraan isku imaado oo ka hadlo React marka React waxay leedahay support far badan ay leedahay mid afraad waxa way package-yada NPM Node Package Manager waa very famous waa xal badan loo isticmaalaa waa package-yada ku jiro almost 90% React way ku shaqeynaysaa so was the amal Apple ama maxalli jiray App Store ka amal waaye ama Google Store ka oo maxalli jiray aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay dhan waxay helaysaa app qof ay sameeyay oo waxa dhigi kartaa WordPress ka plugins kooda wax kasta u baahan tahay qof hore u sameeyay marka React package-dooda wax kasta u baahan tahay qof hore u sameeyay for example forms ka أنا waxaan isticmaalaa Formic barnaamij la dhaho oo loogu talagalay formska waxa kale jiro kuwa kale oo forms badan ay jiro waxa kale oo isticmaal kartaa styling-ka markii aad wax aad qurxinayso CSS waxa jiro kuwa kala duwan material UI React Strap package badan ay jiro kala duwan oo ku style gareyn kartid React-gaada maxaa la jiro routing-ka waxyaalahaas oo dhan number 5 oo mid ugu dambeysay waxa weeye waa speed-ka xawaaraha ku socoto React oo macnaha waxaan ka hadlaa markii aad browser ku isticmaalaysid very fast way for example hadda Alif Cloud oo website-kayga Alif Cloud waxaan ku dhisay React so hadda aadaan link-ga I think hoos ku jira hadda aadaan wali waan ka shaqeynaa waxyaalo yar yar oo errors ku jiro laakiin waan insha Allah next couple of days aan dhameystirayaa laakiin hadda waa live way waa tagi kartaa alifcloud.com waxaan ku dhisay bahal dhaho Next.js oo aydan insha Allah mustaqbalkan ka hadli doona 100% waa habka website-da loo dhiso oo casriga marka React isticmaasha marka Next.js React-ga marka website-ka waxa weeye waa serverless way macna server kuma shaqeynayo waa static maxaa la jira content-ga waa static waa sida amal waaga hore HTML iyo CSS bas website ku dhisi jirtay laakiin tan waxa weeye waa hab la optimize gareey oo la qurxiyo la habeeyay waxa kale oo sameyn kartaa code splitting wax la dhaho React-ga JavaScript-ga minified lagu sameeynaya wixii dhan la habeenaya si website-ka very fast u noqdo React marka waxa si xoog ku leedahay speed-ka xawaaraha maxaa yeelay JavaScript React laftirkeeda package-keeda iska yar hatta I think kama badno I don't know intuu size-kiisa ma garan karo laakiin ma badno ma ahan intaas oo megabyte ma ahan waa very small waa package-ka dhan oo React-ga oo dhan waa very small adiga waxa ku dartay ku xiranta package kala duwan hada ku darto waxa jiro wax la dhaho node packages waxa la jiro node modules ka wuxuu qaadaa package taas laakiin website ma gelinaysid node modules ma qaadaysid ka bacdi ma gelinaysid website-kaada waxaad sameynaysaa barnaamijka isticmaalaysa aniga waxaan isticmaalayaa kuwa la dhaho Vercel waaga hore waxa la jira I think Zaya ta la jiray waxay sameynayaan ayaga waxay hayaan barnaamij server-kooda computer-kooda yaa waxaad ku shubanaysaa React-gaadi ama Next.js-ka ku shubanaysaa ayaga ku install gareena package-da u baahanta adiga waxa u sheegaysaa bas barnaamijkii package.json ka amal siinaysaa wixii leen okay package-dan u baahan tahay ayaga server-kooda soo install gareena automatically uma baahni marka ina node package oo node modules oo very heavy badana 100 ilaa 200 megabyte ka badan waa computer-kaada ku reebaysaa kaas of course marka isticmaalaysid GitHub waxa leedahay git ignore ayaa gelinaysaa barnaamijkaas most of the time automatic way ku jirtaa marka React laftirkeeda very waxa weeye maxaa la jiray very fast waxa weeye waa size-keeda aad u yar yahay maxaa la jiray waxay ku shaqeyn kartaa platform kasto maxaa yeelay waa of course waa JavaScript way so platform kasto way ku shaqeyn kartaa ama Windows ama Mac ahaado ama ha ahaado ilaa ku roon yahay any browser kasta ahaado way ku shaqeynaysaa I think kuma shaqeyn karto inta badan waxyaalaha qaarkood kuma shaqeynayaan Internet Explorer-ka hore like Internet Explorer 6 waxaas of course waa la dhaafay oo hadda company badan actually way joojiyeen support-ka Internet Explorer-ka hore marka waa JavaScript-ga marka meel kasta ku raan gareynaysa marka waxaan dhihi lahaa React waxa weeye very powerful shaqadii fududeynaysa maxaa la jiray shaqo fiican ku qaban kartaa maxaa la jiray waa it's just one of the most powerful way waxyaalaha ugu qatarsan oo web development-ga waa React way waana baran doonaa insha Allah cashar dhan ka soo diyaarin doonaa waan ka wada hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo dadku su'aalaha soo weydiin insha Allah waan ka jawaabi doonaa aad u mahadsantiin dhamaantiin insha Allah subscribe ku dhufo channel-ka channel-ka maalin dhawtaan aan bil camal aan waxba ka sameynin marka wixii dhan hoos wada aadeen view-gi everything subscribers-ki
marka waxaan rabnaa kor inaan usoo qaadnay insha allah. So I have to keep uploading more, and insha allah inaan wadnaa rabnaa 6000 oo hadda maraya subscribers. aad iyo aad umadsantay dhammaanteen qof kastoo subscribe gareeyey. hadduu ilaah yidhaahdo anigana waxaan goolkayga hadda kornasaan ka hadla waxaa weye channelka inuu noqdo meesha laga barto programming oo af soomaali aad ku baran kartid meel kastoo adduunka aad joogtid. waana 100% free waaye. aniga wixiiga sorry about that. maxaan ahaa goolkayga ma inaan meeshaan lacag ka sameeyo. that's not my goal. goolkayga shaqo caadi inaan raadsado waaye oo aan hadda raadinayo. actually I'm looking for shaqo. barnaamijka softwarekana waan wada of course businesskayga ahaa iyo web designki wixii isku dhex wadaa. goolka waxaa weye adinka inaan wax idin baro oon firaaqa idin helo. Somali programmersaan haddeertaan ka shaqaynayna websitekiisa maasha allah raga igala shaqaynayo. waqti dheer qaadanaysaa laakiin insha allah waxaan isku dayayaa in aan soo dhamaystirna kaas uu noqon doono meesha habka ama meesha laiskugu imaan karo wax laga baran karo. waxaa soo gashaa discordka. active kama ihi maalmahan laakiin insha allah mardhow active aan ka noqon doonaa. schedule aan samayn doonaa insha allah aan dadka wax ku barayno. qofkii su-aal qabo, qofki wax in loo kala caday u baahan, qofki anything wax kasta oo ku saabsan programming iyo web development ku saabsan meeshaas ka helaysaa. waxaa kusoo biirtaa groupka facebooka iyo discord kusoo biir. waa ka faa'iidi doontaa wax badan. marka intaas idin sheegi lahaa insha allah aan idinla sheer garayn lahaa. khayr aan idin rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. waxaan rabay inaan idin tuso hawada. it's very cloudy way, and just inaan bahalkan wareejiyaan raba. very cloudy, aad bay carrada waxay u tahay roob. meel dukaan hortiisaan joogaa saa u jeedid. hawada maasha allah weye. waxaan ku jirnaa summer wax la dhaho hadda oo maxaa la dhihi jiray waqtiga waxaa weye kuleelaha. laakiin hadda winterka soo geli rabo. marka insha allah meeshaana waa magaalo yaraan joogo oo la dhaho St. Cloud. intaan waxaan hor taaganahay dukaankaas Walmart saa u jeedid. waa dukaanka weyn wax laga gato. marka khayr aan idin rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.